ururka dabargoynta qabyaalada iyo daryeelka danyarta ayaa 28 Abriil waxay agoon Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xeryaha dadka soo barakacay ee ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho ay gaarsiiyeen agab loogu talagalay in niyadooda sare loogu qaado. agabkaasi ayaa wuxuu isugu jiray buugaag wax lagu barto qalimaan iyo waliba fanaanado ururka dabargoynta qabyaalada oo ugu talagalay in dadkani gaar ahaan agoonta uu ku dhiirigeliyo. wakiilo ka tirsan ururka ayaa dadkani gaarsiiyay gaar ahaan xeryaha dadka soo barakacay iyadoona agoonta gacantooda ugu qeybiyay waxyaabihii loogu talagalay kaasi oo ururku uu doonayo inuu ku taakuleeyo dadka danyarta. sida arkayseen waxa gudoomiye ka gabadhii hadda idin la hadlaysay Luulsha Xasan aad ay u dadaalaan dadkaas waxay hayaan qaxooti aad u fara badan oo ku dhow 2000 oo kaleeto wax badan ayaan hore uga warqabnay dadka khayrka markay nala soo xiriiraan waa meelaha aan geyn jirnay oo ku bixin jirnay kadibna waxaa nala soo xiriiray walaalaheen ururka dabargoynta ama la dagaalanka qabyaalada iyo daryeelka danyarta oo degan dalka Belgium santarkiisa ama xaruntiisa ay tahay meelo badan oo adduunka kamid ah sida dalka Sacuudiga iyo maartay oo Afrika qaybo kamid ah iyo ay degan yihiin sida loo sheegay oo dad Soomaali ah oo maartay isbiirsaday oo ku talagalay inay maartay hawshaas ay maartay ku midoobeen inay wax ka qabtaan ayaa maanta waxay na soo gaarsiiyeen oo ay noo soo dhiibeen inaan wax siino 150 agoon ah oo agoonnimadooda la hubo kadibna maartay agoon waliba aad ugu baahan oo aan meel ku xirnayn meel aan ku tirsanayn marka meesha qaxootiga iska degan marka waxaan la soo xiriirnay maamulka centerka ayaan la soo xiriirnay waxaan u sheegnay inay aan u baahannahay agoontaas inaan wax siino maanta marka waxaan loo soo ururiyay 150 ku ugu sii liitay oo agoonta ugu liidatay ahayd waxaan insha Allah rabnaa inaan siino buugaag iyo qalimaan iyo funaanado iyo ma arkaysa qalin qor iyo goomi ay ku tirtiran lahaayeen kulli hadda sanad dugsiyeedka waa dhamaad oo wax yar ka dhiman inta yar oo ka dhiman wixii ay ku gaari lahaayeen insha Allah ta'ala siinayna ma arkaysa centerkooda ayaa waxa ugu dhaxayaan iskool oo ay wax ku bartaan oo maartay ibtidaai ama maartay dugsi hoose insha Allah marka waxaan leenahay walaalihii soo dhiibay ilaahay aan u baryaynaa waxaan leenahay ilaahay miisaankiina ay ugu kabo. ururka dabargoynta qabyaalada ayaa inta badan waxa loo aasaasay inuu bulshada Soomaaliyeed ka wacyigeliyo dhibaatada ay leedahay qabiilka kaasi oo noqday mid culiyaamiyay horumarkii waddanka Soomaaliya. inta badan ururka dabargoynta qabyaalada ayaa waxay Muqdisho ka sameeyaan taakuleen loo sameynayo dadka danyarta kuwaas oo isugu jira agoon waayeelo culiyaameen iyo waliba dad kale oo waxba awoodin kuwaas oo ururku u qoondeeyay in waxyaabihii ay iyagu gacan ka geysan karaan ay ka taakuleeyaan iyadoona inta badan caasimadda Soomaaliya Muqdisho laga dareemayo waana tilaabada ururku oo doonayo inuu ku garab istaago bulshadiisa ku dhibaataysan waddanka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan. dhawaan ayaa la filayaa in ay daafaha caalamka gaar ahaan goobaha ururka oo ka jiro ay ka dhacdo munaasabad lagu soo dhaweynayo sanad guurada ururkaasi waxaana mas'uuliyiinta ururkani ay ballan qaadeen intii karaankooda inay garab istaagi doonaan bulshada Soomaaliyeed isla markaana ay sii wadi doonaan dadaalada ay ku doonayaan in shacabka Soomaaliyeed ay kaga wacyigeliyaan cudurka qabiilka kaasi oo dadka Soomaaliyeed iyo waliba dalkaba si aad u naafeeyay. ururka ayaa waxa uu istaagay aas-aasidiisa dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo maskaxdooda ay ka soo maaxatay in lama huraan ay tahay in la sameeyo wacyigelin ku aadan bulshada taasi oo laga wacyigelinayo dhibaatada qabiilku uu leeyahay. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Cable TV, magaalada Muqdisho.